Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba muuqaalkan waxaan ku ogaan doonaa 10 dal ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan adduunka. Dalalkan ayaa isugu jira qaar iyagu ka mid ah dowladaha Islaamka iyo qaar ay muslimiintu ku nool yihiin qaybo ka mid ah dalkaasi, laakiin tiradoodu aad u badan tahay ee daawasho wacan. Ku soo dhowaada muuqaalka. Lambar 10 Ciraaq oo ah dal dhaca qaaradda Aasiya, gaar ahaan Bariga Dhexe, ayaa waxaa ku nool muslimiin gaadhaya 38 milyan oo qof. Lambar 9 dalka Suudaan oo ku yaala qaaradda Afrika, waxaa ku nool 39 milyan 585,777 qof oo muslimiin ah. Lambar 8 dalka Algeria oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, ayaa waxaa ku nool 41 milyan 240,913 qof oo muslimiin ah, waxaana ku jira kaalinta 8aad. Lambar 7 dalka Turkiga oo ah waddan ka gudba qaaradaha galbeedka Aasiya qaybna ku leh Balkaniska ee koonfur bari Yurub, ayaa waxaa ku nool 74 milyan 430,725 qof oo muslimiin ah. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyo sidaana wuxuu ku jiraa kaalinta 7aad aan idhaahdee ee wadamada ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiintu. Lambar 6 dalka Masar amba Egypt oo ah waddan isku xidha waqooyi bari Afrika iyo Bariga Dhexe, caan ku ah webiga Niil iyo kanaalka caanka ee Suez, ayaa waxaa ku nool 85 milyan ilaa 90 milyan inta u dhaxaysa oo muslimiin ah, waxaana ku jira kaalinta 6aad ee dalalka ugu badan ay muslimiintu ku nool yihiin. Dalka Nigeria oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika, ayaa waxaa ku nool 95 milyan ilaa 103 milyan oo qof oo muslimiin ah inta u dhaxaysa, ayaa isagana ku nool, waxaana ku jira kaalinta 5aad ee dalalka ugu badan ay ku nool yihiin muslimiinta adduunka. Lambar 4 dalka Bangladesh oo dhaca koonfurta Aasiya, waxaa ku nool 153 milyan iyo 700,000 oo qof oo muslimiin ah, waxaana ku jira kaalinta 4aad ee wadamada ugu badan ay muslimiintu ku nool yihiin adduunka. Lambar 3 dalka India oo dhaca koonfurta Aasiya, ayaa waxaa ku nool 200 milyan oo muslimiin ah. Dalka India wuxuu ka mid yahay waddanka labaad ee adduunka ugu dadka badan, 200 milyan oo ka midina waxay yihiin muslimiin. Dalka India muslim ma aha inta badan, laakiin waxaa ku nool muslimiinta cadadka intaa tirada leeg, waxaana lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin muslimiinta Hindiya 4 dal oo khaliijka ku yaala marka la isu geeyo. Dalka Hindiya waa dalka ay ku nool yihiin 1 bilyan iyo badh oo dada, 200 milyan oo ka midina waa muslimiin, laakiin dowladoodu maaha Islaam inta badan. Kaalinta 2 dalka Bakistan oo dhaca koonfurta qaaradda Aasiya, isaguna waxaa ku nool 212 milyan iyo 300,000 oo qof oo muslimiin ah, waxaana ku jira kaalinta 2aad, waana dal Islaam ah. Kaalinta 1aad amba dalka ugu badan ay ku nool yihiin muslimiinta adduunku waa dalka Indonesia oo dhaca bartamaha qaaradda Aasiya, waa dalka adduunka ay ugu badan yihiin muslimiinta ku nooli ama kaalinta 1aad ku jira, waxaana ku nool 231 milyan oo qof oo muslimiin ah. Waa tirakoobkii u dambeeyay. Waxaa xusid mudan in wadamadan aynu soo qaadanay intooda badan ay ku yihiin qaaradda Aasiya iyo Afrika. Aasiya ha u badnaadaan. Qaaradda Aasiya waxaa lagu tilmaamaa qaaradda ugu dadka badan adduunka marka 5 qaaradood la qaybinayo. Waxaa la sheegaa dalalka ku yaala qaaraddaasi inayna dal dhowr boqol oo milyan dadkiisu aana ka yarayn una jirinba. Dhammaantood waxay ka wada badan yihiin waa dhowr boqol oo milyan, wax macnaha waa dalalka ugu adduunka, waa dalalka ugu population-ka badan adduunka. Dal population yariba kuma jiraan ayaa la yidhaa. Muuqaalka yar inta ayuu ku egyahay. Ku soo dhawaada kanaalka, haddaad ku cusubtiin subscribe saara si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaadho muuqaalkan soo gelina. Gambaleelkana furo, haddii kalena like-ta iyo share-ka sii saar. Dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.